بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أحبابنا الكرام، إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكالي انت كذب وحلقتني تضباد وهد ليني برنامج كي فضلك صومك يا حكامة صومك. إلهي عبسدي ساعة اسفرينا انت أنا قد قلنا نورا إلهي أنا نكبغنو، إلهي أنا كعبسنو، وأمرت إلهي أن قادنو، وحيالها إلهي ونفرها يوعن لنما نوحو نقربها ينا أنكهرنو liimaanteena aakhiro iyo midda adduunba inta ayay ku jirtaa. taa dabadeed walaalayaal, xalaqadii tagtay u dambeysay waxaan ka hadalnay soomka shuruudda loo shardiyo ansixidiisa iyo wujuubka shuruudda markii la helo qofka soomka uu ku waajibayo iyo arkaamta. maanta waxaanu jecelnahay xalaqadeennan inaanu ka hadalno sunanta soomka, waxyaalaha sunnada ah ee qofka loo baahan yahay inuu sameeyo ee soomka dhexdiisa sunnada ku ah, sidoo kale karaahada waxyaalaha ku ah oo qofka la iska ilaalisho inaan wax ka taabano. daba soonka sunantiisu way fara badan yihiin walaalayaal. waxaa kow ka ah tacjiilu lfidri, qofku inuu afurka dedejiyo waxay ka mid tahay sunno weeye, laakiin goormuu dedejinayaa? idaa tayaqana alquruuba, qoraxdu markuu inay dhacday uu yaqiiniyo. ama hadduu ku shakisanya ma dhacda mise ma dhicin, markaa degdegi maayo. markii qoraxdu xaqiiqoodu inay dhacdo inuu hore ka afuro sunno weeye. nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaas oo ka hadlaya wuxuu yidhi, ummaddaydu ka suuli mayaan khayr inta ay afurka dedejinayaan, suxuurtana ay dibdhigayaan. waa suxuurta ayay laftirkeeda in lala yimaado waa sunno, in la dibdhigana sunno weeye. kow marka waxa weeyaan in qofku uu afurka dedejiyo waa sunno laga hawaabinayo. sunno kastoo aada samaysad oo nebigu ku dayanayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh, ee nebigu noo jideeyey, qofku markuu sameeyo wuxuu ka helayaa thawaab. laba waxa weeyaan asuxuur, inuu suxuurto qofku sunnada soonkay ka mid, walow bijurcati maahin biyo kabashadoodba ha noqoto. waqtigeedu wuxuu soo galaa min muntasafi leyli, amiinku markuu kala bari gaaro. ee hameenku haddii yani 12 qoraxdu dhacday 6 markii la marayo wixii ka dambe uu soo gala. waana sunno in la suxuurto, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka. war suxuurta maxaa yeelay suxuurta waxaa ku sugan barako ayaa ku sugan. barakadaas ahlucilmi waxay leeyihin waxaa ka mid ah ataqawi cala asawm, qofku inuu soomka u quwoobo. sidoo kale inuu ahlu kitaabka la khilaafo ayaa ku jirta. dadkan ahlu kitaabka la yidhaahdo ma suxuurtaan, oo nabigu calayhi salaatu wasalaam camr bin alcaas saxaabigii la dhihi jiray radia allahu canhu xadiid uu ka wariyey waxaa ku sugnaa nebigu inuu yidhi, faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklatu saxari, inuu yahay aklatu saxari. annaga iyo ahlu kitaabka soonkeeni iyo soomkooda waxaa farqiga u dhexeeya waxa weeye suxuurta. lidaa darteed xigmada ayay ka mid tahay barakadaas inuu qofku helo oo uu suxuurto ayaa laga rabaa, oo uu la yimaado suxuur. calaykum biqadaa'i saxuuri fa inahu huwa alqadaa'u almubaarak, baa nasaa-i riwaayo uu wariyey ku sugnayd. war dushiina waxaa ahaado aad laasimtiin suxuurta, maxaa yeelay qado la barakeeyey weeye. wixii gelinka hore layska cuno oo dhan iyo hameenka niskaa dambe inta u dhacaysa qada ayaa la iska yidhaahdaa. idan qofku inuu suxuurto sunno ayadka sunno weeye. waxaa kaloo sunnaa taakhiiru suxuur, suxuurta qofku inuu dibdhigana ayana sunno weeye. laakiin dibdhig waxaa la rabaa uusan ku fuxshoobayno, dibdhigu uusan faxshi gaarayn oo uusan xadka ka bixinayn. bal hadduuba is yidhaahdo amaa waagii bariyo fajriga dhashay
inuu ka haystaa wanaagsan sababtoo ah intuu ku dhici lahaa iyadoo duluuc alfajr la gaaray qubayl alfajr fajr intuusa dhalan 50 aaya intii laga akhriyo kale ka hor inuu suxuurto ayaa sunnah sida nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigu markuu maruu yiri waa suxuurnay haddana nabigu salaada u kacnay markaasaa la yiri meeqa u dhaxaysay tasaxarnaa maca nabiyi sallallahu alayhi wasallam thumma qaama ila as-salaah haddana nabigu salaada ayuu istaagay qultu waxa saxaabi kam kaana bayna al-aadani was-suxuuri meeqa suxuurtii aadaanka u dhaxaysay markaasuu yiri qaala qadru 50 aaya konton aayadood qof aad u carafuudna u soo akhrinayn qof aad u carab daahsan uu san akhrin dhaxdhaxaada intuu lagu akhriyo kale baa u dhaxaysay aadaanka fajriga iyo suxuurta idan in la dibdhigo waa sunno oo qofku wuxuu ku leeyahay thawaab asoo milicsanayo dibdhiga sunnada haduu sameeyo idan marka waxa kale soo aroortay waxyaalaha lagu suxuuranayo inay xataa kamid tahay timir waa la rabaa oo xadiis waxa ku sugan Abi Daawud ku wariyay nicma saxuurul mu'mini at-tamru qofka mu'minka suxuurtiisa waxa u wanaagsan oo nicmo laha timir yaa darteed uu timir helayo qofka inuu ku suxuurto suxuurtiisa waxa uga daro way wanaagsanta idan marka qaybta labaad aan sheegnay sunanta waxa kamid ah soomka suxuur waxa saddexay suxuurta laftirkeeda in la dibdhigo saada sheegno waxa kamid ah waxyaalaha sunnada oo la rabo qofka inuu ku dadaalo al-fidru ala rudabin rudab inuu ku afuro nooca timirta kamid ah rudabka la yiraahdo waliba tira isdheer haduusan helayna inuu markaas uu timir ku afuro haduusan helayna uu biyo ku afuro haduusan helayna markaas wax macaan uu ku afuro sida ayaa wanaagsan sidaas ayaa wanaagsan oo Anas waxa laga warshay inuu yiri radiyallahu anhu kaana nabiy sallallahu alayhi wasallam nabi ilaahi wuxuu ahaa yufdiru midkii ku afura ala rudabatin rudab ku afujir rudabat dhowr xaboor qabla an yusalli intu satukan maghrib fa ilam takun rudabatuna adaysa ahaanu leelina ay sameesho oolina timir ayuu ku facalaa tamaratin timir ayuu ku afuri jiray nabigu markaa salawaatullaahi wa salaamu alayhi haduusa timir helina fa ilam takun adaysa ahaana xasawaatin min maain biyo yani ka kabashadoodii waxyaalahaas ayuu nabigu sameeyay salawaatullaahi wa salaamu alayhi idan sunnada waxa kamid ah qofka timir inuu ku afuro waliba tira isdheer haduusan helina biyo haduusan helayna xataa wax macaan inuu ku afuro kuwaana sunnada ay kamid yihiin waxa kaloo sunnada kamid ah al-ityanu biducaa al-iftaar qofku ducada iftaarka inuu la yimaado waqtiga la afurayo ducada la اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت إنه آخريه سيوك الذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله حديث كاسنة ابن عمر لفتك يساوي عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحا إذا أفضلنك وأفر قال نيراد ذهب الظمأ أنك واتقي دعاء وآخرين وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله سيدا أيو نبي وآخرين أيي macnaheedu waxa weeyaan yaani oonkii waa tagay weey xididadiina waa qoyeen ajarkiina waa sugnaaday insha Allah macna oonkii waa tagay waxa laga wadaa qofka waxa la yiri kababiya markuu sameeyo ama xabad timir cuno inuu akhriyo oon inuu suuli ka wada goynaa dhici karta macnaheedu waxa weeyaan yaani waqtigu uu tagi lahaa la gaaray weey xilligii uu tagi lahaa ayaa la gaaray dhahaba adhamu wabtalat al'uruq وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفضرتنا أينا ويجرت أينا وحاكلوا كم إذا سننت تفضير الصائمين إنه ذلك صومنا قفك أفريه أجر آد فربضان أيها كسوان ولما فيه من الأجر الكبير أجر وين وأنا قرأت الشيخنا حلقات كنا وسوا هذا قفك حكوه لا إله النار تكحر أيه ذنوبتس إلهي وقدافه sidaasoo kale uu ku helo qof 10 siiyana hadii ilaahay xoodkayga uu ka waraabinayo nabiga isaga yiri xoodkayga buu sharbata la idmo bacdaha abadan sharbay cabitaan uu samardamba gadaalkada oomin ayuu ka waraabinayo salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa kamida sunanta al-iqtisaalu min al-janabati janaabada inuu ka qubayso qofku qabla al-fajr fajr intuu sadhalan ina ka qubaysatid
sunnaday ka mid hadduu fajriga kugu dhashana waa ka qubaysan karta nebigu fajriga haleeli jiray wahuwa junuub riwaayinka qaar waa ku yimi marka inuu ka qubaysto intaan fajrigu dhalan si uu u taxadaro yani meelihii biyaha laga ilaalinaya waxyaalahaas oo dhan isagoo yani weliba waagu baryin inuu qubaysto ayaa wanaagsan oo sunna waxaa kaloo sunnada ka mid a oo qaybta sideedaad aliqtisaalu kula leylatin hameen kasta inuu qubaysto min layaali ramadaana bacda almaqrib maqribka gadaalkiis hameen kasta qofku inuu qubaysto sunno weeye si uu nashaad ugu helo qiyaamuleylka iyo taraawiixda iyo cibaadadaasuu nashaad iyo ugu helay firfircooni weeyaan waxaa kaloo sagaal ayanoo sunnaa qaybta sagaalaad almuxaafadatu calaa salaati taraawiixi salaat taraawiixdu qofku inuu xifdiyo ilaaliyo min awali leylatin hameenka u horeeya ilaa aakhiri leylatin hameenka u dambeeya laga gaaro qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu leeyahay man qaama ramadaana iimaana waixtisaaban qufira lahu maa taqadama min denbih qofkii istaaga bisha ramadaan asagoo rumaysan ajarna suubsanaya waa loo dhaafaa dunuubtiisa wixii hormaray kan looga jeedo biqiyaamka ramadaanna salaatu taraawiixi weeye sida ahlucilmigu qabaan sidaa weeye xadiiskaas imaamu bukhaari iyo muslim ayaa wariyey oo soo saaray waxaa 10 oo la rabaa qofku inuu ilaaliyo ta'akudu lmuxaafadati calaa salaati lwitri salaada salaatulwitrka inuu ilaaliyo xifdiyo 3 waxyaalood bay khaas la tahay soomka dhexdiisa kow horta jamaaca ayaa lagu sunneeyaa bisha ramadaan dhexdeeda waa aragtay watarka waa lasu xirtaa waxaa kaloo lagu sunneeyaa in lala jahro qirada waxaa kaloo lagu sunneeyaa niska dambe ramadaan dib la gaaro in la qunuudo ducaa alqunuud lala yimaado 3 waxyaalood ramadaanka dhexdiisa qaas ku yahay inuu marka la yimaado watarkaas sunno weeye waxaa kaloo ka mid a sunanta aliktaaru min tilaawati alqur'aan qur'aanka akhrintiisa qofku inuu badiyo weliba bitadabburihi uu ku akhriyo bitadabbur asagoo ku akhrinaya macaanihiisa qur'aanka ku tadabburaya maxaa yeelay bishan waa bilqur'aan waa bishii qur'aanku soo degay waa bishii xataa jibriil calayhi salaam inagu imaanayey sala allahu calayhi wasalam ee qur'aanku la daraasaynayey uu la akhrinayey ilaa markii dambe ramadaankii u dambeeyey 2 jeer uu la daraaseeyey waa kii nebigu yidhi jibriil ramadaanka samar buu imaan jiray qur'aanka la daraasayn jiray laakiin ramadaankii u dambeeyey 2 jeer ayuu la daraasay idan marka qur'aanka qofku waa bishii qur'aanka inaa nasiibkiisa qof walba ka qaato muhiim wey sunantay ka mid tahay inuu qof qur'aanka si badan u wanaagsan u aqriyo uu intuu dhowr jeer dhammayn karo qatmo uu samayn karo uu sameeyo kaana lishaaficiyi radiyallahu canhu 60 qatman ramadaanka 60 jeer ayuu dhammayn jiray qur'aanka imaamu shaafici maxamed bin idriis calayhi raxmatullah khatma hameenkii weeye khatmana maalintii hadii waxaa laga yaabaa jalaada la aqriya 3 juz dhib kugu tahay laakiin imaamu shaafici oo sidaas wax u qori jiray oo intaasoo yani masaa'il taxliiliyey madhab dhan yani sameeyey saas yani diinta istinbaad ugu sameeyey haddana tilaawadiisu waxay ahaan jirtay bisha ramadaan 60 goor qur'aanka inuu dhammeeyo asxaabtii ka horeysay aimada oo ka horeeyeyna si ayay u dadaali jireen imaam Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxaa la tilmaamaa ragca waaxida qur'aanka inuu ku dhameeyey radiyallahu anhu marka al-ikthar min tilaawati al-qur'aan qur'aanka oo tilaawadiisa la badiyo sunanta kamid waxaa kaloo la rabaa al-ikthar min as-sunan sunanta inaan badino karawaatib as-salawaati salaadaha rawaatibta raaca faradka 22 rawaatib ayaa raacda 10 muakadaad weeye 12 qayru muakadaad weeye bisha ramadaan inaan 22 ka tukanaa daw ah oo haboon inay ku soo mareyso ma ogid maalinkaas qof aad taqaanaa dhimanaya bishii maalmo ka dhimanaya hadii ilaahay inuu na gaarsiiyaan ka bariyeen ilaahay haduu na gaarsiiyo subxaanahu wa ta'ala waxaana la ka rabaa inaan rawaatibtoona la nimaano subaxiga 2 ka horeysa duhurka 4 ka horeysa 4 baa ka dambaysa casarka 4 baa ka horeysa nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkii tukada rahimallahu imra'an salla 4 qabla al-'asr qazali imam qazali alayhi rahmatullah markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay waxaa muhiim in la tukado sababtoo ah nabiga ducadiisu uu helayo qofka tukada la nabiga duciyo ilaahay oo naxariis idan muakadaadku waa 10 qayr muakadaadkuna waa 12 maqribka 2 ka horeysa 2 ka dambaysa cishaa 2 ka horeysa 2 ka dambaysa inta way 22 ka rago muakadaadku waa 2 subax ka horeysa 2 duhurka ka horeysa 2 ka dambaysa 6 2 maqrib ka dambaysa 2 cishaa ka dambaysa muakadaadku yaani waxa laga wadaa nabiga daa'imi jiray sallallahu alayhi wasallam marka
كرواتب الصلوات صلاة رواتب تقف إنه بديه سننتك وصلاة الضحى لو رجع وير سديد باو بدن سيد راجع من حجر يقمان سداوي رجل لبي تون جارسينا واجران مركا لو رجع وير سديدنا باو بدن تاسيل اسكو وافقسنيا سديد بس كتو بشهر رمضان إلهي دعاء عافيمات كسي وسنه ثواب بدن باكو هلي هل سجود أهل العلم واحد هان وكل على بشهر رمضان دحيده وقف كل شجرة في الجنة جد أيوة جنة كلها هل سجود إذا ما قصة سجود السماين كرتاب بشهر رمضان وحياله بدن إلهي نوافجيه والتسبيح صلاة وتسبيح أنا صلاة اللي يراها جرتا صدع بقول تسبيح يكون جرتو أيانا إنه قفك تكذا تكنكر والأوابين صلاة الأوابين صلاة اللي يراها أيانا إنه تكذا بعد المغرب على تكذا لحد على المغرب كدم بيسا أي فوقات كل شيء كان سيدو كلا الإكثار إنه بدي قفكم من الأعمال الصالحة أعمال صالحة هذا هو وناكسن إنه وحكب بديو نسيب كيس وكاقاتنا أيانا مهم وي سيدا كصدقات هل درهم بشهر رمضان صباح كساعة بيحسد با إلهي سبحانه وتعالى ثواب عن عدد كيس لكوبي كان إلهي كوسينا وصلة الرحم قرابة إنا حرينه وحضور مجالس العلم علم مجالس سقفك حاضره والاعتكاف إنه نيستو والاعتمار إنه عمره يستو سيدو كله أنا يجي صوم مرنوني هل عمره رمضان لو حسمي النبي وعجر وعلمت عمره صلى الله عليه وسلم أنا إلى قتي عمره أنا إلى قتي ومصلي مركز أنت وتك تري ضل حاجة ويلكيسي وإيجاتجين ويحجيين وأنا إيجاتجين نبي محيري عمره رمضان لو حسميه با وعلمت أنا عمره إلى قتي وكله سيدو كلا الإقبال على الله قفك إنه إلهي سبحانه وتعالى وقابله بالنية أنا صوم مرة قفك هل نيو هل باب وناكسن أفره نفتي سونية صالحة فتح الله إلهي وحفر له 70 بابا من أبواب التوفيق تضبعات باب وأبواب التوفيق كم ذا سيدو كلينا إلهي أن نقابلنا بحفظ القلب والجوارح والدعوات المأثورة قفك إنه قلبي إلاليه صومك صدح وقف سماكات لدونا مركا إنه قلبي حفظيه جوارحنا وحفظيه سيدو كل الدعاء مأثورات كل سوق جورينا إنه قفك وكدو عيسو النبي كسرنات صلوات الله والسلام عليه وعكم إذا سننت الاجتهاد في العشر الأخير طبعا كقدام بشهر رمضان قفك إنه الدلاله نبي الدلاله بشهر رمضان هذا أنا طبعا كوسي دلاله رسوس تيور الدلاله رسالة الشيء وتحري ليلة القدر ما قفك إنه كد دلاله الراسه هذه وده النبي عليه الصلاة والسلام بشهر هذه ليلة القدر طبعا كده ما كره هذه ترى سدير كره هذه يا أو تارت يعني كوي لواتنك صدق لواتنك شاني لواتنك ضبي لواتنك ترى سدير قفك إنه كره هذه أيانا وحكم أنت سنة إنه الدلاله بشهرا هذانا طبعا كده ما الدلاله ليلة القدر يقول أيوه فضل بدن تجديد تاني صدق سنة يقولي وبلو عمل السمين هي قف سوعي بعد السنة هي عمل كيس همينك أضوى وافقا يا كده وتجي سمك عمل بدن تأوس الرئيس وعوي ليلة القدر الأول هذه ورت رك بدن إمام الشافعي وكمية عليه رحمة الله وحي قمان كوي لواتنك إني تهاي إمام الشافعي بقى كمية أما صدق لواتنك إني تهاي جمهورته لكن waxay qamaan u badan yihiin 27 inay tahay mas'uud baa kamid ah waliba ku dhaartay 27 hamiinka inay ku jirto laakiin ahlu cilmi aktarkoodu waxay qamaan inay tirooyinka isdheer ku jirto maxaa la riwaayooyin baa tilmaamay insha Allah xalaqa u gaarana hadii Ilaahay nawaafajiyo waa hadli doona laakiin saddex qaybood baa lagu raadiyaa oo la rabaa hamiinka Laylatul Qadriga inuu qof ku raadiyo hamiinka oran in la nooleeyo waa martabada ugu sareysa inuu ku nooleeyo qofka Quraan akhris صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بأنواعه يعني عبادة دمانتين تنكون عكت وحوي همينك أو دحدحاتك معدن كيس إنه نولي تنوضن بيسووه رئيس إنه الصبح جيو يا مغربك إنه كتو كذا جماعة إنه كتو كذا عشاء أيه مغربك من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل وأكيد النبي عليه الصلاة والسلام قفكي جماعة كتو كذا عشاء وعلمي دي قف همينك بركستو استاجي تكناي وما رمضان كلية أي يعني عشاوي سيدو كلام من وصل صبح في جماعة فكأنما قام ليلة كله وأمين كودان قف قتوك معهم من الدار رمضان كتوك تمر بشهر رمضان صدق كبيرة مسائل وتنكبر إن إذا شنت وقتها أي سنورها في جماعة الله أنا كنت دالنو إلهي نوافج سبحانه وتعالى فرجع عجل إلهي ومضى هسي بسجد وحيالا حرم كربض ومضى الله قال مركا أي قيبت وورا سيسوي حويا إن وعشاء الصبح وكتب كذا جماعوي مركا ليلة القدر علامات لو قرتوي جيران بالله العلم هميك جرتو يعني قراحه ايو صافيه صوب حي سامين كاس
waxay leeyihiin waa malaa'igta degaysa ku korhaya shucaaca nuurkooda weeyaan saafi weeye marka ayadoo oo wax shucaaca aan lahayn ee saafiya bay qoraxdu dhalataa amiinkaas calaamadihiisa ka mid qofka hadduu arko inuu qariyaa sunna oo yacni ilaa waa tii la yidhi inuu qariyo waa sunna sidoo kale maalinteedana uu nooleeyo la maalintiin waa la mid habeenkii dii ilaahay waafajiyay maalintii uu nooleeyo caaisha markii nabiga weydiisay dii ilaahay waafajiyay maxaan ku ducaysay allahumma innaka cafuun tuxibbul cafwa fa'fu cannii ya allah kii nabigu saa ku ducaysay sala allahu calayhi wasalam marka waxaa ka mid a marka sunanta inaan dadaalno qofku dadaalo tobanka dambena sii dadaalo tirooyinkaas dheer aada u raadso bisha habeenka leylatulqadriga habeenka nebiga waa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam sida xadiiska cubaad bin saamit ku sugnaa laakiin laba saxaabo ka mid anta iskhilaafeen baa la kor yeelay iskhilaafeen maxaa khilaafku markasta ma fiicna waxa kaloo loo qadiyana xikma aa ku jirto qofku ayuu iska taala saaran lahaa habeenkaas keliya cibaadaysan lahaa cibaadada kale laga tegi lahaa waxaa ka mid a sunanta sidoo kale qofku inuu ku dadaalo wax xalaal oo shubha ku jiro inuu ku afuro wax xalaal inuu ku afuro wa afdir ala alxalaal ya daalib alkamaal wa kiir caarifki imaam abdullah bin husayn bin daahir alayhi rahmatullah waxa ku afurtaa xalaal sidoo kale tawassucatu ala alciyaal ciyaalka in waas loo sameeyo waxa kamid tahay ilaahay cilmiga sunnada bilasha la waasiyo biqadri daaqa yani waxa kamid inuu ka tago qofku laqwiga iyo mushaatam cayd iyo waxyaalahaas waa ka hadli doona insha Allah xalaqadeena nagu soo socota ilaahay waafajiyo soomku waxyaalaha buriyo laba loo qaybshaa wax ajarkiisa buriyo wax daatadiisa buriyo marka wax ajarkiisa buriyo xanka kamida qiibada kamida yani waxa kamida namiimada waxyaalahaas inuu iska ilaalisho weey sidaas imaam Ghazali alayhi rahmatullah sunanta intaas ayaan ka sheegnay marka inaan inta ku dadaalno muhiim ah wuxuu leeyahay soomku saddex buu qaybsamaa soomul umum soom iska caama waa huwa soomul awaam baa leeyahay awaamta soomkooda weey wa kulluna awaam marka waa huwa soom aan ilmufaddirat almufdilat waa in laga soomo waxyaalaha wax afuriyo qofku inuu iska ilaasho soomul awaam ayaa la yiraahdaa soomul khusuus ayaa ku xiga soom khaas ah waxa weeye waa huwa soom aan ilmacaasi macsina ka soontid weeyaan ka soono macsida inaanu ka soomo صدح صوم خصوص الخصوص صوم خاص كسي خاص هذا خواص الخواص الليلة وهو الصوم عما سوى الله وإلهي كسوهرين لك الصوم قلبي قابه وحان إلهي هين سكسو دعين هذا هو الصوم الخصوص أو الخواص صوم الخصوص خواص الخواص يا الليلة مكروهات وأيام قدرين إن شاء الله وحيالا كراهية صومك كو وحوي العلق على روق قف كنو وحروقه asoo joobkiisa wax gaaray la joobka dad wax gaaran ka buraya inuu wax iska ruuga maanta oo dhan karaahiyo weey laba waxa weey dacaamka qofku inuu dhadhamiyo iska tufo waa karaahiyo dacaamka inaan dhadhamisan ilaa dad laga soo rawaa jira karaahiyo soo ahan qofka cuntada diyaarinayo kale qofka cuntada diyaarinayo gabdhaha muuminaadka ama ragga yaani wixii cuntada diyaarinaya oo cuntadaas raba inuu ogaado dhadhankeeda cuntada dad baa loo diyaarinaya inay wanaagsan tahay in kale ka waxa la leeyahay cilmiga karaahiyo ma aha laakiin inta kale oo ka soo hartay qofka soo sooman inuu inta wax dhadhamiyo iska tufo la duu la qawaaba ka burin lahay sooma inuu inta dhadhamiyo iska tufo dhadhankaas karaahiyo weey waa karaahiyo soonkiisii ma burin laakiin karaahiyo weey maadaama iska tufay ilaa qofka cuntada karina afuradii waa dhadhamin kara karaahiyo asaga kama waxa kale oo karaahiyo ah marka qofka soo sooman inuu sameeyo toobinka dhiiguna soo saaro iska soo saaro waa karaahiyo jirku daciifaya karaahiyo inuu qofku qof toobana waa karaahiyo inuu asoo istoobana karaahiyo weey dhiiguna iltijaam kharaaj dami ila dhiigin la soo saaro qayrkiis inuu toobana waa karaahiyo duu qof yaqaan sanada yahay soo soomo inuu asoo istoobana karaahiyo weey waxa kamid karaahiyo kamida majul maa'i ba'da al-ifdar qofku markuu afur biyaha inuu iska tufo hatuufin laqbiya min al-fam معايا لا صونك بركيس وتبينها يا ولدنا العلم سيدا وي قبيس او قفك اسغو دنبنايا بيو اسكو تيمبيو كراهيدو كميديا ولو كان الغسل واجبا بهنقو دور واجب هنقو وكراهيه markaasna hada waa mar qofku meeli biyo ka galayaan iska xir hada biyo galaan karaahiyo u dhaafayo qofka hada meeli biyo laga ilaalisho
afkii iyo sankii iyo dib inta galaan joofka gaaraan soomkii waxyaalaha buriye waa ka hadli doonaaye uu soomku ka buro hadda soomkii waa buray marka inuu biyo uu tiimbado qofku karaahiye weeye ama qubayska lama diidano mar haddiisu qofku ay waqti waa qubaysan karaa isagoo sooman ay waqti mar haddiisu in biyuhu gaarayn meelihii la yidhi laga reebo ise gaarayn oo dhegtoo kaliya culimmada qaaraa qaba inay yani madhabkeena shaaficiga suu qabo waa jawf haddii qofku inta dhegta muuqato ay dhaaftoon wax inta qofku kula sinan u jeedo wixii ka hesheeyey dhegtu haddii wax gaaraan waa kaa burinaya soomka marka dhegoo kaliya qofku biyo ka galaan kasna ay tahay waa galaan waa ka buraya soomka ama haddays meelahaas wax ka gaarayn waqtigu raba waa qubaysan karaa qofka waqtigu raba waa qubaysan karaa marka waxaa karaahiyaa biyaha inuu tiimbado karaahiye wey waxaa kaloo karaahiyaa asiwaak bacda zawaal inuu qoraxdu markay zuusho gelinka dambe uu cadaydo maxaa yeeley wuxuu tabinahayaa bay leeyihiin khaluufa fami saa'im qofka saa'imkaa afkiisa xayaabadii iyo nayaabadii saarnayd ayuu tabinahayaa imaamu nawowi laakiin wuxuu qabaa soo karaahiye la-aan oo inuus karaahiye ahayn laakiin madhabku shaaficigu sida ayuu qabaa bacda zawaal inuu karaahiye yahay marka inuu iska ilaalshaa qofka waxaa ka mid oo karaahiyada ka mida kasratu shabici wanawmi hurdada inuu iska jiifo qofku maanta o dhan dheregta inuu iska badiyo iyo sidoo kale inuu dhumbado waxyaala aan danayn alkhawd fi ma laa yani wuxuusa shuqul ku lahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu hadle waa ki yidhi qofka muuminka min xusni islaami lmari qofka islaamkiisa wanaageeda waxaa ka mida tarku maa laa yani waa ki yidhi waxyaalahan malaayacnayska qofku inuu ka tago tanaawulu shahawaat ayaa ka mida karaahiyada markii dheregtoo la iska badiyo waxaa laleeyahy karaahiye wey hurdo qofku maanta ona iska jiifana oo la yidhahdo waqtigaan ku goynana iska jiifno ma amiinkii iska soo jeeda maalintiina hurdo waqti isku dhaafisina ayana hurdada badan karaahiye kugu noqona waa bil cibaadayso maca daalika waa inay soo sheegna hurdada litirka cibaada inay tabisho laakiin nasiib ka qaado cibaadayso wey waxaa sideedeeyo nuugu dambeeyo oo yani karaahiyada tanaawulu shahawaat mubaaxa iska banaan kuwa xaraamtamay wax iska banaan sida waxyaalaha la ursado waxyaalaha la arkayo beeraha yani xadiiqooyinka ama beeraha qurqurxoonoo kale iskaga soo dalxiisid xikmaddii soomka loo jidayo ahayd taqwo in la helo qofku yani soddonkaas beri inuu yani uu siyaasado cibaado iyo taqwo iyo allow dhawaasho ayaa laga yaabaa meesha inay ka baxdo meesha ka baxdo xikmadii loo jideeyey qayb ka mid ah baa laga yaabaa inaa ka tagto marka inaa qofku iska baashaalo oo yani waxyaalaha indhuhu ku doogsanayaan dhagu waxay ku raaxaysanayaan sanku iyo waxyaalaha uray ku raaxaysanayaan waxyaalaho dhan ha samayn ee isxakamee bisha si ilaahay subxaanahu watacaala nafaxaadkiisa bil kasta nafaxaad baa ku sugnaatay in rabbikum fii ayaami dahrikum nafaxaad ee u bambaxa ka yiri nabigu kama qaala calayhi salaatu wasalaam inaan u bambaxno marka ilaahay nafaxaadkiisa ilaahay raxmadiisa ilaahay cidqigiisa ilaahay maqfiradiisa ayaana la ka rabaa marka shahawaadka o dhan ba iska ilaali waa ku banaanaaye ogow kuwii banaanaa weye maahan soomkaa ina wax u dhibaysa karaahiyan ka hadlayna laakiin karaahiyana ka tag karaahiye laftirkeeda aan iska ilaalino waxaa inugu xogi doona xalaqeena soo socota insha allah mubdilaatu soomka waxyaalaha burisha inta ayaan kusoo gaaminana as'alu llaha subxaanahu watacaala an yajcalana waiyaakum min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah inahu calaa maa yashaau qadiir bilijaabati jadiir waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin